Salaamu calaykum soo dhawaada asxaabteeda. Maanta waxaan qaadan doonaa saddexdan qodob. Saddexdan qodob muhiimad gooni ay leeyihiin. Mid walba gooni aan u sharxi doonaa. Hadda waxaan ka bilaabaynaa midkan koowaad. Maxay tahay sababta iyo muhiimad goonida ay leeyihiin? Yacni waxay la mid tahay adigoo hadda baraayo oo kale laba hadda saddex ku dirtid waxay noqonaysaa 5. Marka qofkan hadduu garanaynin labadaba say laba ku noqotay ama meeshay ka imaataba uu garanaynin oo adiga aad dhahdo laba saddex ku dar waa 5. Hadhow way ku adkaa doontaa inuu aasaaskii fahmo. Marka aniga opposite-kii aan isticmaalaynaa horta waxaan ka bilaabaynaa hal markii lagu daro laba noqonaa laba hadda saddex ku dirtid waxay noqonaysaa 5. Yacni qaabkaas oo kale yacni wax walba aasaaskooda inaan barano wayna horta marka hore fahanaa kadib markii hawshan ku guda jirno haddaan laba afar ku dar haddaan dhahno labadan meel ka imaatay hadhow qof gara waayna ma lahan. Yacni mithaalkaas oo kale waxaan ka bilaabaynaa midkan koowaad. Sida hadda la socono luqado waxaa jiro oo dad kala nooca kala jinsiyaha ama kala qoom ah isku imaaday oo ay ka dhex dhalatay iyo luqado waxaa jirto dad walaalo ah isku meel wada joogay oo hal luqad oo Ilaahay saas ugu dhex abuuray aska jiraan. Marka sidan Sawaaxiliga iyo Englishkan waxa way luqadaha dadka isku imaaday ka dhex abuurmay. sida luqadaha min Allah iskaga abuurman waa sida waxaan dhigi karnaa luqada Soomaaliga iyo Carabiga. Waa sida taariikhda qorayso 6000 BCE yaa helay UK. Muddada 8000 sano laga joogo ayaa la helay UK. Dadkii helayna waxaa la sheegaa inay ku hadli jireen luqad loo yaqaano Celtic. Celtic waxay ahaayeen qabiilo kala duwan asal ahaan ka soo jeeda bartamaha Yurub kuwaas oo wadaaga luqad caqiido diimeed caadooyin iyo dhaqamo isku mid ah. Waxayna ku faafeen galbeedka Yurub oo dhan oo ay ku jiraan Ingiriiska, Ireland, Faransiiska iyo Isbaanishka iyagoo reer guura ahaa. Waxayna saldhigteen Ireland iyo Great Britain halkaas oo raadadka afkoodii iyo dhaqankoodii ay weli caan ka yihiin maanta. Waa meesha hadda yelowga waa meesha oo dadkaas ka soo aasmeen green oo daagan waa meesha hadda ay ku sug yihiin. 500 BCE luqadda Celtic ayaa dadku ku wada hadli jireen xilligaas ilaa haddana dadku hadla ayaa jiraan iyo erayo badan oo English ah oo weli la isticmaalo. Bal aan dhageysano luqadda Celtic iyo dadka Celtic afkooda suu ahay ileen dadka hadda qaaradaas ku nool waa awoowayaashoodii iyo dadkoodii hore luqadii lagu hadli jiray oo asalka ah. Bal aan dhageysano isku day inaad ka fahmi kartid hal erayo English ah hadduu ku jiro ama suu u dhawaaqmo suu kula yahay. Bal aan fiirino. Fate anthros, esio enemesi, esticadio san mantovos, rigetoe tuageti, butatoa uragaresti, indiarai, keni esti enemesi. Sanatir pe esio enemesi, esticadean mantovos, rigetove tureti, butatova ragasti, indiarai, keni esti enemesi. Anathar paid enem. 55 BCE Romankii ayaa qabsaday oo goortii ku bilaabatay gumeysiga. 55 sano ka hor dhalashada Nabi Ciise ayaa waxaa qabsaday boqortooyadii Romans waxayna haysteen in ka badan 500 sano. Romanka waxaa dhinaca aqoonta iyo kormeeridda u qaabilsanaa Gariiga waxayna wax ka bedeleen qaabkii dadka u hadli jireen. Waxayna luqadda ku soo dareen ereyo badan oo Laatiin ah. Laatiinka waa Romanka iyo ereyo badan oo Greek ah iyo qaabka loo yaqaan morphology si gooni ah u baran doonaa. Laakiin sharaxaad ayaa ka bixi doona casharada soo socda oo midkan ku xigo. Romanka waxay kala ahaayeen Romanka galbeed iyo Romanka bari. Marka midii galbeedka ayaa burburtay UK way iskaga baxeen. Awoodoodina waxay iskugu geeyeen midii bari. sababo dagaalo adag oo dhinacaas ka haystay in ka badan 680 sano. 450 AD dhalashadii Ingiriiska Old English bilowgiisa waaye. Waxaa qabsaday 3 qabiil oo loo yaqaano Germanic Anglo-Saxon. Waa meesha magaca England ka imaaday. Waa Germany, Netherlands iyo Denmark ayaa meesha la wareegay. Ayagoo luqadii isbedel ku sameeyay, ariyo badan oo ku soo daray waana dadkii Old English bilaabay.
550 AD waxay bilaabeen isticmaalka Roman alphabet. 597 waxay noqdeen Christian. Markaas ayaa ereyo badan oo Laatiinana ku soo darsameen. Luqadii way sii balaaratay. 792 AD waxaa qabsaday Scandinavian Vikings oo ku hadli jireen luqadii loo yaqaanay Old Norse. Waa Danish, Norwegian, iyo Swedish iyo Icelandic. waxayna ku soo biiriyeen ereyo badan oo Old Norse ah. Luqadiina way sii balaaratay. 1000 AD يعني almost 1000 sano ay gumeysi ku jiraan. Waa dhamaadkii Old English. waa xilliyadii loo yaqaanay Old to Middle English. dhageyso sida Old English ku ahaa iyo isku day ereyada qaar iyo siday u qormi jireen iyo dhawaaqyada inaa wax hadda ka fahmi karto. waxaan loo yaqaanaa Beowulf. What? Weigardena in Jardogum. Theod Kuninga, Thrumje Frunon. Huda Adalingas, Elin Fremedon. Oft skyldskjeving, Sjædra Threatum. Monegum Meithum, Mjodo Setla Ofteach. Eiso de Jorlas. Sydan Arastwerð. Fasha Funden. Hedas frå Freje Bad. Weoxunder Welknum. Werth Muntum Thach. Othar him Eiwilch där umsindra. Overfrån rade hyran skölde. Gomban Juldan. That was God Kuning. The Meavra was after Kenned. Young in Jardum, though ne God sende, folket och frofre. waxaan filayaa inaad fikrad guud ka haysato qaabkay u hadli jireen Old English. 1066 Faransiiska ayaa qabsaday. ayagoo boqortooyo samaystay waxaa xoog ku qabsaday Faransiiska. boqorkoodiina wuu ka dilay. wuxuuna haystay in ka badan 300 sano. wuxuuna ku soo daray ereyo badan oo Old Faransiiska ahaa. wuxuuna meesha ka saaray ereyo badan oo Old English ahaa. waxayna wax ka bedeleen qaabka ay dadka ereyada iyo waxyaabo badan oo nidaamkii luqadda loo isticmaali jiray uu meesha ka saaray. waxaana systemkii noqday Middle English. 1350 AD xorriyaddii kadib 1350 ilaa 1590 waxaa lagu magacaabaa The Great Vowel Shift. waxaana wax badan laga bedelay qaabka loogu dhawaaqi jiray shaqalada Middle English to Modern English. waana asaasida qaabka maanta Englishka loo akhriyo ama loogu dhawaaqo. xilligan Englishku wuxuu lahaa short vowel kaliya, long vowel ma lahayn. waxaan lagu soo daray qaabka hadda grammarka iyo waxaan dhan hadda anaga isticmaalna systemkan dhan, yacni dib u habeen weyn lagu soo bixiyay. 1525 waxaa la soo saaray Baabelkii ugu horeeyay oo lagu turjumay English. 1606 AD bilowgii gumeysiga wuxuu UK bilaabay inuu tookadiisa wax gumeysto. wuxuuna ka degtay America. oo u sii macaanaatay ilaa meelo badan oo uu qabsaday oo adduunka ka mid ah. haddana asigaa u taliya adduunka. waxayna noqotay kaabartaa kaabadshay. intii uu asiga gumeysi jirtay asigaa maanta u taliyo way hoos imaadaan. 1700 kacdoonkii Mareykanka. intuu socday ololihii kacaanka xornimada ayaa waxaa soo ifbaxay qaamuus oo American English ah. 1776kiina xorriyadiisa ayuu ka qaatay UK. marka waa maxay farqiga u dhexeeyo British English iyo American English? luqadda Ingiriiska gurigiisa labaad waa America, kadib adduunku ku sii faafay. marka la fiiriyo isticmaalada adduunka, American English asiga hoggaanka u hayo. waa mid ka dowladaha iyo meel walbo, TV-yada, newsyada, heesaha, meel walbo ninka hadda leaderka u ah oo American English ku soo baxan. waxaa jiro 6 lahajadood, halkay luqadda ay tahay mid isku mid ah marka loo eego qaab dhismeedka iyo hingaada guud ahaan. waxaana jira kala duwanaansho, waana wax yar oo caan ah sida hingaada iyo ku dhawaaqida ereyada qaar. inta badan waxay la xiriirtaa dhamaadka noocyada ereyada qaar. ay balaan dhageysano
kala duwanaanshaha u dhexeeya ku dhawaaqidda waxay tahay gacantaada bidix waa America gacantaada midigna waa British gabadha British ah ninkana waa American Britishna sida ugu dhawaaqaan Center, theatre, metre. America sida ugu dhawaaqo Center, theatre, meter. Apologize, realize, prize. Apologize, realize, prize. Colour, favour, neighbour. Color, favor, neighbor. Afterwards, forwards, towards. Afterward, forward, toward. Defence, license, practice. Defense, license, practice. Burnt, dreamt, learnt. Burned, dreamed, learned. Anemia, cacum, celiac. Anemia, cecum, celiac. Dialogue, analogue, catalogue. Dialogue, analog, catalog. Dialing, traveller, cancelled. Dialing, traveler, cancelled. intaan waa kala duwanaanshaha ereyada hadda marka dhinacana u fiirisid Britishka wuxuu dadku bari waayay law oo u yaqaano bathroom Amerikankana waxay dadka bari waayeen soccer oo Britishkeena u yaqaaniin football waana inta sharaxadeena koowaad maalmaha soo socdaan dhimeystirana labada kale fi amaanillah